soo dhawaada akhyaarta. Casharkan gudihiisa waxaynu ku qaadan doonaa wax loo yaqaano layout theory oo ka mid ah design theory-da la rabo inaad ogaato. waxyaalaha aynu qaadan doono waxaa ka mid ah proximity, white space, alignment, contrast iyo repetition. intaan haddaad iska habayso layout-ka waa ku quruxsanaanaya. layout-ku waa maxay? waa qaabka iyo muuqaalka aad u sameynayso design-kaaga iyo qaabka uu u oolayo. marka waa inaad ku xisaabtantaa. okay, proximity waa maxay? marka la joogo layout theory, proximity waxa weeye inaad isku meel dhigto waxa isleh. tusaale ahaan social media icons oo la dhigo qaybta footerka ayaad waxaad Facebook dhigtay halkan, Instagram-ka halkan, waxaad ku kala dhexyaacisay design-kaagii. maxaa la isleeyahay? ninkan waa beginner weyn, baro waa inuu wax soo bartaa. laakiinse haddaad isxejiso waxa isleh hadda designada tan oo kale markay isku xigaan inay qurux keenaan. sidoo kale waad aragtaan soo ma lambarada iyo qofka informationkiisa halka la dhigay. labada tan maxaa la isugu xijiyay? waa laba isleh. haddii qaybtan loo geyn lahaa, qaybtan halka la dhigi lahaa, maxaa dhici lahayd? oo isku dhex yaaci lahaa layout-ku. okay, white space waxa weeye waa neefta uu helayo design-kaagu. hadda design-kan halkan ka muuqda wuxuu haystaa intanoo neefa buu haystaa, halkan white space buu ka haystaa. white space-ku maaha space cad maaha, lagama wado. waxa weeye waa space-ka bannaan ee design-kaaga. waa space-ka bannaan ee design-kaaga intaanoo dhan white space. hadda background-kan waa yellow, white space-na waa la sababtoo ah waa space. intan waa white space, halkan waa white space. design-kaagu white space-ka uu leeyahay. soo kale design-kaagu waa inuu padding leeyahay, soo kale margin leeyahay. hadda design-kani margin buu leeyahay, bannaanka space buu ku haystaa, gudahana design-ka ku jira farta space bay haysataa. soo ma jeedid? waa inay space leeyihiin waxaagu. kalarku doono qaadan karaa. just waa maxay? waa inta bannaan ee design-kaaga. waana inaad neef siisaa design-kaaga oo aadan wada buuxin oo wada jam ka dhigin. waa inaad neef siisaa uu ku neefsado. okay, alignment waa inay siman yihiin. okay, hadda meeshan boldiga iyo textigan boldiga alignment bay leeyihiin, way siman yihiin. sawirada tan sidoo kale alignment weeye. textigu wuxuu yaalaa centerka, halkan textigu center ku yaala. waad aragtaa meesha la rabo inuu centerka noqoto. alignment wuu saxan yahay. alignment-gaagu haddaanu saxsanayn oo tusaale ahaan textigaagu uu halkan ku dhigsan yahay, qaybna xagga ay jirto, qaybna ay meelaha kan saaran tahay, waxaa dhacaysa inaad alignment-gii ama layout-kii design-kaaga aada lumiso, qaab darrana oo laga heli waayo design-kaaga. marka waa inaad ku xisaabtantaa layout markaad joogto. alignment wax kasta waa in alignment yihiin. haddaad center ka dhigayso waa inay center ka yaalin, haddaad left dhigayso waa inay left yaala. okay, waa inaad ku xisaabtantaa. contrast-iga waa maxay? waa kala duwanaanshaha shay uu shay kale ka duwan yahay. tusaale ahaan markaynu fartan adeegsanayno madow, waxaynu adeegsanay background yellow ah. ka waran haddaynu fartan u adeegsan lahayn background ama color yellow ah, ma arki lahayn? may. markaynu kan adeegsanayna madow, waxaynu adeegsanay background cad. haddaynu caddaan ka dhigi lahayn, ka waran iconkan, ma arki lahayn? may. marka textiga iyo iconada waa inaad colorka kala dudaa. soo kale textiga stylekiisa waa inaad kala dudaa. hadda textiga kan waa muhiim oo waxaynu saarnay meesha ugu sareysa, waana capital. halkan maxaynu ka dhignay? waynu yaryaraynay laakiinse weli waa capitalkii. marka waa inaad ku xisaabtami kartaa. hadda gabadhan oo kale boodaysa waxay haysataa difference bay haysataa oo layout-keeda ah. casaankan maxaa laga dhigay? qaybta hoose caddaan baa background ah, qaybtan sarena caddaan weeye. subjectigu maxaa background ah? casaan baa. marka difference-gaas oo kale waa inaad u samayn kartaa design-kaagii si layout-ku uu kuugu hagaago. okay, hierarchy waa inaad u samaysaa oo wax kala sarreeya ay yihiin. okay, sidaynu kusoo qaadanay typography theory waa inuu hierarchy leeyahay. hadda kan save the date oo kale waa meesha ugu weyn. halkan waxaanu ka dhignay hierarchy labada magac ee arooska ah, meeshuu ka dhacayo aroosku waa saan oo kale. hierarchy waxaa la inay kala sarreyn leeyihiin oo markii aad adeegsanayso title-ka fargaara u adeegsataa, subtitle-ka waa inaad fargaara u adeegsataa, body-ga waa inaad fargaara u adeegsataa. marka hierarchy waa inuu leeyahay. repetition waa maxay? horeyna usoo qaadanay, waxaynu kusoo qaadanay principles of design. wax soo laalaabanaya waa inuu leeyahay design-kaagu. hadda iconada tana soo laabtay, kalarkan oo kale halkan aynu kasoo qaadanay, kalarkan uu soo laabtay, fartu waa isku nooc way soo laabatay. marka waxaad fahmaysaa waxaan inay isleeyihiin. okay, soo kale waxaa muhiima inaad og tahay wax layout theory la dhaho inuu jiro aadan ka boodi karin. guuleysta.